waa tixanaha toddobaad maanta halkan ayuu inooga bilaaban doonaa. Waxaa soo saaray tarjumay idilana socodsiinaya anigoo ah Abduqaadir Maxamed. xadaaradii boqortooyadihii Hellenistic ayaa ku baahday bariga Mediterranean-ka. laakiin Hellenistic kuma uusan qanacsanayn dunida Giriiga hore. guulihii Alexandria ayaa sidoo kale keenay qaybo badan oo ka mid ah Aasiyada in ay hoos timaado oo xukunka Giriiga. bariga waxaa ka talin jiray boqortooyadii weyneed ee Seleucidyadu waxa ay ka mid ahaayeen xukuumadaha looga arrimiyo Giriiga. waxa ay la qabsadeen dhaqanka gudaha ee dunida Aasiyada. waxa ayna u hoggaamiyeen sida boqortooyadihii reer Faris ama Persianiska kuwaas oo xitaa soo gaaray ilaa Muqdisho caasimadda Soomaaliya. magaca Muqdishona uu iyagu ka yimid. Seleuciyiintu waxa ay ahaayeen kuwo tartan weyn uu kala dhaxeeyay Ptolemigii Masar. waxa ay tiro 6 jeer dagaal fooda ay isdareen Ptolemigii Masar iyo iyaga si uu midkood ula wareego awoodda maamulka Suuriya. boqortooyada Seleucid waxa ay lahayd magaalooyin waaweyn oo caan ah, waxaana ka mid ahaa magaalada Baabil. waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii hore ee ugu ilbaxsanaa, waana caasimadda koonfurta Mesopotamia. imika maanta waxa ay 60 mayl u jirtaa koonfurta Baghdad ee dalka Ciraaq. waa Dar es Salaam ama Jerusalem. magaaladuna waa Dimashq ama Damascus iyo waliba Antioch. waa maxay Antioch? waa magaalo dhinaca koonfureed ka saaran Turkiga, waana xarunta ganacsiga ee dunidii hore u ahayd caasimadda Suuriya. waxa ayna maamul u ahayd Masiixiyiinta ama Kirishtanka. kadib waxa ay ahayd Baktaariyada waxa ay ahayd gobolladii hore ee dunida Aasiyada dhexe. buurta Hindu Kush ayaa waqooyiga ka saaran, halka webiga Oxus uu ka saaran yahay, waana dalka maanta imika loo yaqaan Afghanistan oo ay xukuumadda Baktaariyada u ahaan jirtay Giriiga. boqortooyadii Giriiga ayaa xilligii hore deganeed Afghanistan-ta maanta ee dunida casriga, iyadoo xilligii hore la odhan jiray Baktaariya oo xukuumad u ahayd boqortooyada Giriiga. kadib Ayaqanomi oo ah magaalo loo naqshadeeyay sida dhismayaasha Giriiga ayaa laga dhisay Baktaariya. waxa ay deegaan u noqotay 6,000 oo Giriig ah. halkan waxa ay si wada jir ah ugu wada noolaayeen shucuubta Aasiyada iyo dadkii ka soo jeeday boqortooyada Giriiga. Ayaqanomi waxaa maamulayay talis ku hadla luqadda Giriiga. magaaladu waxa ay lahayd tiyaatar loo dhisay nooc naqshadeed ee Giriiga iyo Romaanka iyo farshaxanka Giriiga. Ayaqanomi waxa ay ahayd halka ay ku wada kulmaan marinka u dhaxeeya bariga iyo galbeedka. xukuumadihii Hellenistic ayaa ku fiday jasiiradda Sicilia ee galbeedka Mediterranean-ka ilaa galbeedka Afghanistan-ta casriga ah ee maanta. waxaan ugala jeedaa xukuumaddii uu dhisay Hellenistic ee loo yaqaanay Baktaariya. waxa ay haysteen ilbaxnimo ganacsi iyo xadhigga hiddaha luqadda Giriiga iyo dhaqanka.
inkastoo ay boqortooyadihii Hellenistic ay midaysnaayeen dhaqan ahaan, laakiin ugu dambeyn waxaa kala qabqabay hanaan siyaasadeed ee soo cusboonaaday. dowladihii waaweynaa ee Hellenistiga sida Ptolemy-ga Masar, Antigoneska iyo Seleucid si joogto ah ayay dagaal ugu jireen. markii ay ka adkaadeen Carthage-ka sanad taariikheedkii 202 ka hor dhalashadii Nabi Ciise, Romaanku waxa ay dhexdhexaadiyeen kooxahoodii waaweynaa. imika iyagu waa xor inay fidiyaan boqortooyadooda. waa boqortooyo ku guuleysatay birta iyo dhiiga. imtixaanaha toddobaad ee maanta halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. inta aynu imtixaanaha xiga ee 8aad aynu kaga kulmi doonno, waxaan idin leeyahay inta ka horeysa nabadgelyo. rukumo channel-kanaga haddii ay tahay booqashadaadii koowaad si aad uga mid noqoto daawadayaashanada ee ku tixan barnaamijkan taariikheed ee boqortooyadaha dunida hore. anigoo ah Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray, turjumay, idin lana socodsiinayay.